شرم بوي هدو اسكف انا سام بمقدشتي كريم يا حمانا يا مسكين كان sababta kaliftay in filan Sharma Boy oo magaalada Muqdisho dib ugu soo laabo waayo isagoo oo ahay fanaanka kaliya ama fanaaninta kaliya oo lagu bartay dhankaas iyo magaalada Muqdisho kana soo aas-aasay dhankiisa iyo fankiisa magaalada Muqdisho kuna soo barbaaray magaalada Muqdisho laakiin waqti xaadirkan aan joogin ama sababta kaliftay in uu imaa waayo magaalada Muqdisho la wada og yahay dagaalkii ka dhaxeeyay isaga iyo Daahir Cali Sow dagaalkaas oo noqday dagaalada ugu xumaa oo dhanka social media la iskaga dagaalo ama dhanka social media dagaalkii ugu xumaa ama uu saameynta badnaa uu noqday dagaalkaasna waxaa ka dhashay in uu fanaan Sharma Boy magaalada Muqdisho uu agtiisa soo dhigi waayo ilaa sababa kalifay sababtaas oo ah in uu naftiisa la baqay in uu haduu yimaado magaalada Muqdisho sababtay tahay waxa ku badan ama aad iyo aad ugu badan magaalada Muqdisho dadka taageero ama bulshada oo ku xiran tahay ama dadka xigo dhankaas iyo Daahir Cali Sow marka sababaas ayaa kalifay in uu magaalada Muqdisho imaa waayo oo isagoo oo dhankaas iyo magaalada Muqdisho fanaan Sharma Boy dadkii ku soo barbaaray ama justi dadkii fankiisa ama dhanka fankiisa horumarka badan ku sameeyay magaalada Muqdisho ka sababahaas oo kale ayaa iska jiro in uu naftiisa uu la baqo dhankaas waxyaabahaas sababtay tahay dadkii dagaalka kala dhaxeeya ama dadkii oo xifaaltiga kala dhaxeeya wala iska wada yaqaana waa youtuberka caanka ah Daahir Cali Sow marka sababahaas ayaa iska jira maahan siyaabo kale ama waxyaabo kale oo ka maqan yahay magaalada Muqdisho ma jirto fanaan Sharma Boy marka waana fanaan oo justi oo lagu wada bartay ama dhankaas magaalada Muqdisho heese aad u qurux badan ama dhanka magaalada Muqdisho ku amaanayo ama taageerayaasha ama dhalinyarada si u badan yihiin in badan waa fanaanka kaliya ee badana dhalinyarada reer Muqdisho ama dhalinyarada reer Xamarka ay aad u wada taageeraan mar walba oo dhanka fankiisa ama dhanka heesihiisa mar walba waa la iska wada ogyahay sida mar walba oo muuqaal ama hees markii soo saaro fanaankan ay challenge ugu sameynayaan kas iyo TikTok sida mar walba muuqaaladiisa ama dadka mar walba dhanka TikTok joogo 100% ama 99% waxay mar waliba ay muuqaalada iskaga duubaan heesaha Sharma Boy ama heesaha كرباشكا لكن سيدا او مغالada Muqdisho ugu tagay ama sida aad ka arki karto ama sida qof walba oo dhanka iyo indhaha indheeyo dhankaas iyo fanaankan ama dhankaas iyo fanaanka si saxiisaya badana ma ahan sida markii uu magaalada Muqdisho joogay ama markaas oo muuqaaladiisa iyo dadka dhalinyarada ay challenge ku soo sameeyay jireen ama heesiisa laakiin just hadda waxa dareemaysaa hoos u dhac in badan 100% la dhihi karo ama dhanka hata heesaha fiiskooda mana garan karno sababta kaliftay in uu maanta waqti xaadirkan oo level kastaga ama sida uu shalaha aan levelkan oo ahayn maanta markii uu ka tagay magaalada Muqdisho waxaan sugnaaba waa isagoo magaalada Muqdisho yimaada ama dhankaas iyo heeso fara badan ku soo duuba ama dhankaas iyo heesihiisa sida loogu bartay ama bulshada Soomaaliyeed marka hore ay ka baratay in uu sameyn doono